Bismillahi Rahmaani Rahiim. Kusoo dhawaada channelkeena Nambic DM Solutions. Waa video kale toornay inaan ku sharaxno qaabka crypto wallet loo samaysto crypto exchange. Waxaan samayn doonaa sida account looga samaysto account cusub looga samaysto shirkadda Binance. Account-kaasna loo verified gareeyo, lacagna loogu shubto iyo qaabka lacagaha loogala baxay iyo sida lacag loogu shubto. waxaasoo dhan ayaan videogan bilow ilaa dhammaad step by step idinkugu sharxi doonaa insha allah. Haddii aad channelkeena ku cusub tahay, markii ugu horreysay ay tahay, waa kusoo dhaweynaynaa. Subscribe noo saar, sidoo kale inta videoga like noo saar si dad fara badan videogan uu u gaaro. insha allah insha allah waxaan hadda bilaabaynaa sida account looga samaysto Binance-ga. Binance si aad account ooga samaysato waxay u baahan tahay laba step. Stepka koowaad oo ah inaad marka horeento isdiiwaan geliso oo create account aad samaysto, account cusub aad samaysto oo waxayso. Stepka labaad oo ah in account-kaaga uu noqdo account verified ah, oo ah in aad geliso documentiga aqoonsigaaga inaad geliso oo waxay rabaan macnaha maadaama waxaan la isticmaalayo cryptocurrency-ga ay tahay wax bangi iyo waxba aan loo isticmaalaynin, oo ay tahay kaliya lacag walbeed markii la istiqbaal garayna iyo markii la dirayo waxaa la isticmaalayaa xarfo dhaadheer oo magacyo iyo nambare iyo wax isku kala duwan waa in tusi doonaa. Marka waxay rabaan marka qof walbeed kaliya in la aqoonsado, qofka uu yahay in la aqoonsado kaliya unbaa laga rabaa. Shirkadahan ay u sameeyaan wax kale ma jiro. 3 document midkood kamid ayaa gelin kartaa, oo document oo government ah la rabaa, oo dowladeed la rabaa, oo sharci ah, sida masalan ID card oo kaleeto, ID card-ka wadanka uu bixiyo aqoonsiga ah, ama passport, ama driver license, kaarka oo maxay ahayd baabuur wadista. intaba waa wax xukuumad dhankeeda ka imaaday. Marka account-ka marka waxaa la rabaa in uu sidaan uu noqdo, uu verified uu noqdo la rabaa. Marka insha allah step by step ayaa videogan uga bogan doontaan, bilow ilaa dhammaad nala daawada. Si aad maxay ahayd markaa videogan dhamaystaan kadib aad adinka iskiin u samayn doontaan account-kiina, kadibna aad u verified gareyn kartaan, kadibna lacag ugu shuban kartaan, lacagna loogala bixi karo, loo trade gareyn karo Binance-ga. Okay, si stepka koowaad waxaan ka bilaabaynaa stepka koowaad si aad account ooga samaysato Binance-ga. Si aad linkiga saxda ah ee shirkadda aad u tagto, videogan aad daawanaysid qaybta description-ka midka ugu horeeyo, linkiga ugu horeeyo ku dhufo, kadibna page-kan ayuu ku keenayaa. Markuu page-kan ku keeno, waxaa imaanaysaa page-kii registration-ka. kadib si automatic ah markii aad imaato wuxuu ku leeyahay where do you live, isla markiiba asaga ayaa aqoonsanayo location-ka aad ku nooshahay. laba step ayaa samayn kartaa oo aad maxay ahayd account-ka uga samaysan kartaa by email iyo by phone number. haddii aad by phone oo kaleeto tusaale ahaan haddaad doorato, isla markiiba area code-ka oo wadankaaga asaga ku doora, numberka intiisa kala dhamaystiraysaa. qaybta marka password-ka wuxuu kaa rabaa password-ka inuu ka koobnaado 8 xarf, inuu ka koobnaado ugu yaraan iyo wixii ka badan. waa inuu sidoo kaleeto password-ku ka kooban yahay nambaradan characteristics-kan sida cad oo kale ama afargeeskaas oo kaleeto mid ka mid ah inaad ka doorato. sidoo kaleeto in aad xarfahoo kaleeto markaad magac iyo sidoo kale numberna inuu ka koobnaado. magacoo kale markaad password u samaynayso kaba soo qaad tusaale ahaan cabdi oo kale, midka u kooda waxaa ka dhigaysaa xaraf oo capital letter oo weyn. sidoo kale numbers-kana saas camal oo kaleeto ayaa u samaynaysaa. marka minimum-ka 8 character sidaas ayaan ku dhamaystirnay. saa arkaysaanba intiiba waa uu naga qaatay. kadibna waxaa leedahay create account yaa leedahay. create account markaad tiraadid,
kadib create account markaad tiraahdid oo halkan ku dhufatid, stepka ku xiga waxa waaye in aad complete security verification inaad samaysid. security verification-ka markaad samaynaysid suulkaaga ayaa waxaa ku qabanaysaa meeshan aad ku qabanaysaa, kadib waa soo dhaqaajinaysaa. markaa kan uu soo dhaqaaqo hoose, kanna wuu ka daba dhaqaaqayaa. markuu ka daba dhaqaaqo waxaa la rabaa kan iyo kan labadan xabo in aad isla ekeysiisay ee isla ekaadaan macnaha macnaha waxaa la rabaa inaa human aad tahay iyo inaad robot tahay ayaa la rabaa in la kala ogaado, machine inaad tahay. marka haddaad bini aadan tahay si sax ah ayaad hawshaas u samaynaysaa. markaad intaas samaysid kadibna waxaa lagu soo dirayaa email taleefankii aad isku diiwaangelisay ayaa waxaa lagugu soo dirayaa 6 number oo verification code ah. 6daas number halkan meeshan hoose ayaad gelinaysaa, 6da number meeshaas ayaad gelinaysaa. marka intaas aad samaysid kadib stepka ku xigo, dabcan ani horaan account ugu samaystay waana verify gareeyay. marka steps-ki aan maray oo dhan maxay ahayd ma wada haddana kuma noqon karo, ma samayn karo. waxaa la rabaa document in la geliyo oo verification ah. wixii oo dhan ma la samayn karo, laakiin as a picture ahaan ayaan website-kan idinkaga tusayaa. markii aad intaas samaysid kadibdi congratulations, you have successfully registered on Binance. Binance sidaas iskaga diiwaangelisay. account-kaaga security sidoo u noqdo kale wuxuu u baahan yahay inuu account-kaaga telephone verification uu lahaado, phone verification, iyo sidoo kaleeto Google verification oo ah Google authenticator baa la dhahayo oo Google Play Store-ka laga soo dejisto. labadaasba waa samayn kartaa. haddii kaleetana by telephone number-ka verification-ka ayaad u daayin kartaa. laakiin labadaasba waa muhiim in aad samayso. haddii marba email aad isku diiwaangelinin oo aad by phone isku diiwaangeliso waa inaad labadaas xabo aad samaysataa. haddii kalenta laakiin by email ayaad isku diiwaangelinaysaa oo meeshan aan dooranay anaka by phone ayaad by email dooranaysaa. kadibna emailkii iyo password-ka gelinaysaa. kadibna halkan waxaa leedahay halkan I have agree, kadibna create account yaa leedahay. marka create account dhahdo kadib stepka ku xigo waxa waaye tii aan soo marnay oo kale inaad samayso oo security verification-ka aad samayso. security verification-kaas kadibna email ayaa code-ka lagugu soo dirayaa. kadibna sidaas account ku samaysatay. kadibna hadhowtii phone verification aad samaynaysaa. meeshaas marka waxaa isku dhammaanayo laba kooda markaas yeelanaysaa, phone verification iyo email verification. labadaas ayaa lagu soo diraa mar walbo lacag aad la bixayso. kadibna Google authenticator-kaas markaas waa ka maarmaysaa. haddii laakiin by telephone isku diiwaangeliso waxay noqonaysaa labadan security verification inaad hadhow samaysato markii aad account aad la waxaynayso. haddaba account-kii hadda waa kuu samaysmay. stepka ku xigo oo aan samaynayno qayb waxaa jirto oo ah bonuses oo ay shirkadda ay bixiso markuu qofka isdiiwaan geliyo. waxaad tegaysaa qaybtan ayaad tegaysaa. kadibna waxaad ka tegaysaa reward center-ka. reward center-ka markaad tagto meeshaan marka waxaa kaaga soo baxayo waxaa lagu siinayaa maxay ahayd abaalmarin. waxay it will be anything, wax walbay noqon kartaa. waxaa laga yaabaa $1 in lagu siiyo. waxaa laga yaabaa in maaragtay maxay ahayd trading-ka markaad samaynayso kalenta in lagu siiyo maxay ahayd in lagu siiyo. annaga haddan maan aqoonin, saas darteed waqtiga 7 beri gudaheeda waaye. 7daas beri intaan la gaarin kahor ayaa la rabaa in aad maxay ahayd stepkaas aad ku samayso marka ugu horeyso account aad ka samaysato.
sahalkan uu qoraalka ay ku sharxayaan. Okay, stepka kale u dambeeyo waxa waaye account in la verify gareeyo. Account marka si loo verify gareeyo waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay identification ayaad tegaysaa. meeshaas identification-ka tegaysaa. kadib markaad tagtid identification-ka verify your account ayaad ka dooranaysaa. get verified account ayaad dooranaysaa. kadib markii aad doorato waxaa imaanaysaa page-kan imaanaysaa. markaa page-kan imaato verified account-ga markaad samaysanaysid saan hadda meeshaan ka aragnaba halkan waxaa ku qoraysaa waddanka aad tahay adiga si aad u ogaatid maxay ahayd account-kaaga inta loo ogol yahay in aad macnaha daily maalin walba aad la bixi karto. sida badan inta badan qofka account-kiisa wuxuu daily oo la bixi karaa maalintii ama uu deposit gareyn karaa ama uu la bixi karaa limit ahaan $50,000 ayuu maalintii la bixi karaa waxin karaa. taasna maasha Allah waa lacag aad u badan. anaga hadda heerkaas ma la gaarin maana gaarin laakiin waa rajeynaa ka badan inaan gaarno. verified plus-kan marka waxaa u baahanaysaa markaa rabtid inaad lacag $200,000 aa waxaysid iyo wixii ka badan. marka qaybtan hoose ayaad ka waxayn kartaa. kadibna meeshaas startiga ay ku qoran tahay ayaad maaragtay ka dooranaysaa. sidaas ayaana qaybtan ugu gudbaysaa. startiga leedahay. startigaas markaa dhahdo kabacdi optionka u koowaad ku dhahaa select your country of residence. waddanka aad aqoonsigiisa ama baasaboorkiisa aad haysatid ama laysankiisa ama aad haysatid baalkii ayaad maaragtay dooranaysaa. kadibna continue ayaa leedahay oo aad ku nooshahay. markii aad waddanka doorato continue aad tiraahdo haddana page-kan kale ku soo baxayo oo ah personal information. meeshaan waxaa gelinaysaa nationality-ga waddankaagii ayaa gelayo. meeshaan waxaa gelayo magacaaga koowaad first name siduu baasaboorka u qoran yahay la rabaa ama ID card-ka waddanka aad haysatid ama laysanka. last name-ka magaca dhexe halkaana waxaa meeshaasaad dooranaysaa aad ku dhufanaysaa. kadibna waxaad dooranaysaa taariikhda aad dhalatay bisha aad dhalatay iyo maalinta aad dhalatay sida baasaboorka ugu qoran ama ID card-ka ugu qoran. kadibna continue ayaa leedahay. optionkaas markaa ka gudubtid kabacdi optionkan ayaa imaanaysaa identity verification. identity verification-ka waxaa laga yaabaa meeshaan labadii option oo aan soo dhaafnay oo ah country of residency-ga in aan masalan kaba soo qaado kaleento adiga aad tahay Soomaali laakiin aad ku nooshahay Kenya ama waddan kale oo Afrikada ama baal ku nooshahay. baasaboorka markaas aad haysatid uu yahay baasaboor Soomaali ah laakiin aad tahay qof Kenya ku nool. marka meeshaan oo kale waddanka Kenya dooranaysaa laakiin meeshaan kaleento waxaad dooranaysaa in aad maxay ahayd baasaboorka waddanka aad haysatid meeshaan ayaad ka dooranaysaa. haddii kale laakiin aad tahay qof Europe ama ku nool Mareykan ama meelahaas ku nool dabcan waddankaagii iyo residency-kaagii waxaagii oo dhan waa wada hal same time hal wax waaye. okay saddexdan option mid kamid ah dooranay haddii aad government issue haysato iyo haddii aad driver license haysato iyo haddii aad baasaboor haysato. kadibna continue ayaa leedahay. kadib identity verification-ka markii aad baasaboorka gelinayso meeshaan option-kan waxaa la rabaa tusaale ahaan ID-ga laga soo qaatay lama rabo ID ama dhinac u waxaysan ama wax u haysan. waxaa la rabaa ID card-ka inuu sidaas u waxaysan yahay maaragtay bayaanaadkiisa oo dhan caddahay ayaa la rabaa. inuu maaragtay black iyo mugdi uu ku jiro ama wax uu ku jiro lama rabo. sidoo kaleento qaybta hore iyo qaybta dambe labadaba inaad gelisana waa laga rabaa. sidaas ayaad markaa intaas samaysa kadib continue ayaa leedahay. sidoo kale selfie photo ayaa laga rabaa. sawir ayaad iska qaadaysaa oo wejigaaga si clear loo arkaayo. marka intaas aad dhamaysa kadibna continue ayaa leedahay. optionkaas markaa ka gudubtid kadib meeshaan waxyaabaha la diidan yahay waxaa ka mid ah inaad masalan okiyalo kaleento aad sawir ku gasho. sidoo kaleeto koofi inaad qaadato. sidoo kale inaad filters iyo waxyaabahaas inta sawir ku samayso kaleento inaad maaragtay adigoo midabkaagii isbedela ama wax noocaasa la diidaa. sidoo kale waxaa loo baahan yahay meeshaan optionkan waxaa lagu sheegayaa
inaad isticmaasho enough lighting iftiin kugu filan inaad isticmaasho. Optionkan kaleeto waxa waaye hab kale oo ah QR code scan iyo waxaas inaad qaab kaleeto aad verification ku samayso. Sidoo kaleeto marka aad hawshaan qabanayso processka oo verificationka iyo photoda iyo wixii oo dhan aad samaynayso 15 daqiiqo haystaa. waxaad ku celcelin kartaa 24 saacba 10 jeer ayaad samayn kartaa. haddii aad 10 jeer ka badan samayso oo wixiina ay kuu saxmi waayaan account-kaaga wuxuu u baahanayaa in ma aragtay 24 saac oo kale ay ka soo wareegato kadibna aad si fiican wixii iskaga saxdo oo si sax ah hawshii aad u samayso. marka qaabkaas ayaa iyadana hawsha loo waxeynaa. kadibna I have completed this photo ayaa leedahay waa dhammaystiray. kadibna sidaas ayuu account-kaaga verified ku noqonayaa. kadibna muddo 24 saac gudahooda ayay kuu soo dirayaan. kadibna account-kaaga sidaas ayuu wuxuu ku noqonayaa verified uu ku noqonayaa. account-kaaga sidaas ayuu wuxuu ku noqonayaa account oo verified ah. sidoo kale saa arkaysaan meeshan qaybtan lighting-ka iyo bahalkii waa laga bedeli karaa. option-kaas ayadana waa uu noo bannaan yahay. account-kaaga markaas verified ayuu noqonayaa. account-kaaga markuu verified noqdo kadib step ku xiga waxa waaye in aad Binance-gaaga Binance-ga saan sheegnayba Google Play Store ku kala tagaysaa. Binance ayaa ku qoraysaa magaca Binance si uu qoran yahay. kadibna waa soo download garaysan kartaa asoo app ah oo taleefankaaga ku soo download garaysan kartaa. waqti walba ayaad isticmaali kartaa. tusaale ahaan oo kale haddii markaa rabtid marka inaad lacag ku shubatid haddii aad masalan joogtid Europe oo kale tusaale ahaan oo kale waxaad ku dhufanaysaa deposit euro. saddex option ayaa meesha marka ku bannaan. saddexda option ee ku bannaan waxay tahay banki card oo Visa iyo Mastercard ah ama Advocash oo ah sida Perfect Money oo kale ah ayadana account laga samaysto iyo B2B Express. saddexdaas option ba waa ay ku bannaan tahay. kadib option-ka koowaad oo kaleeto haddaad tahay qof Mastercard haysto oo Europe joogo si aad lacagta eurada u dhigato waxaad dhihi kartaa continue markaad dhahdo wuxuu option kuu furayaa in aad maxay ahayd added new card inaad dhahdo oo aad card number-ka iyo saddexda number ee u dambeyso iyo waqtiga uu dhacayo in aad maaragtay aad geliso. option-kaas ku bannaan. sidoo kale lacagta aad dhiganayso kaleeto $100 €100 kale kaba soo qaad €100 kale camal transaction fee waxaa kaa bixaysa 1.8. kadibna waxaa leedahay continue ayaa leedahay. kadibna sidaas ay waxa ku gelinaysaa Mastercard-kaaga iyo bayaanaadkiisa gelinaysaa. sidoo kale option kale ku bannaan oo aad lacag u deposit gareyn karta Binance-ga. waxaa jirta barnaamij la dhahayo B2B waxa la yiraahdaa jirto. B2B daas marka waxaad dooranaysaa USDT Tether lacagta la leeyahay in aad maxay ahayd gashatid total amount-ga masalan tusaale ahaan oo kale aad rabtid inaad dhigatid waxaad dooranaysaa €100 kala dooranaysaa. kadibna waa zero fee wax lacag lagama rabo. by Revolt iyo by SIBA banki transfer best option-ka midkaana ugu raqiisan oo ka wada adi midka kuu fududaa dooranaysaa oo markaas option-kaas oo ku bannaan ayaa dooranaysaa. kadibna sidaasaa marka steps-ka aad ku raacaysaa kuna dhammaystiraysaa.
marka qaabkaas ayaa maaragtay hawsha aad ku samayn kartaa. Kadibna maxay ahayd fundinga qaabkaas ayaa ku samayn kartaa, ama optionkan B2B go kale inaad doorato, ama in aad dooratid muxuu ahaa sidoo kale option kale ayaa jira oo ku bannaan oo dad kale oo ayagana Binance-ga isticmaalo oo raba in waxeeyo in ayaga laftirkooda ka garato. tusaale ahaan oo kale payment method-ka halkan waxaa ka dhigaysaa tusaale ahaan oo kaleeto haddii aad haysatid perfect money oo kale kaba soo qaado kale, PayPal oo kale kaba soo qaado kale, haddaa PayPal aad haysatid bank transfer oo kaleeto optionkaasna kuu furan yahay. sidoo kaleeto Vodafone Cash oo kale qofka hadduu joogo Masar oo kale, World Remit oo kaleeto waa ku bixin kartaa. qofka haddii uu joogo bank transfer Turkey, hadduu joogo bank transfer ku bixin karaa. Airtime ku bixin karaa, Nuclear ku bixin karaa, Paysend, Western Union xataa waa ku furan tahay, Payeer ku bixin kartaa. optionadaas oo dhan ku bannaan oo maaragtay lacag ugu shuban kartaa. Cash deposit to bank aad dooran kartaa. adiga optionkii markaas waddanka aad joogtid kuu furan ayaad maaragtay lacag ku deposit gareyn kartaa. sidaas ayaa account-kaagana uu kugu shaqeyn karaa. markaad rabtid inaad trade samaysid oo kale, lacag kale ku bedelatid oo kaleeto, hadda tan oo kaleeto Bitcoin camal waaye. lacagta aad rabtid inaad dooratid oo kaleeto waxaa leedahay 100 ayaan waxaa rabaa inaan u bedelo lacagta USDT Tron camal ah. kadibna saasaad convert ugu samayn kartaa iyadana. sidoo kaleeto markaad rabtid inaad lacag dhigatid qaybtan sportka dooranaysaa. sportka markaad dooratid sport overview waa kana sportka dooranaysaa. sportka markaad dooratid anaga hadda saa arkaysa BNB iyo Tron oo kale lacag noogu jirtaa. meeshaas optionkaas kore waxaa kuu bannaan lacagta kugu jirta waa qarsan kartaa. deposit-ka oo kale intaad dooranaysaa. deposit-ka markaad doorato kaba soo qaado kale inaad waxaa rabtaa lacagtaas USDT oo kaleeto inaad deposit garayso. wuxuu ku weydiinayaa choose the network. waxaad dooranaysaa Tron TRC20. kadibna waxaa copy garaynaysaa wallet address-kaaga oo TRC20 ah. haddaad rabtid inaad dirtidna lacag aad dirtidna withdraw ayaa leedahay. kadibna waxaad dooranaysaa lacagtii markaas aad maxay ahayd rabtid in aad dirtid USDT oo kale ka soo qaad Tether lacagta la leeyahay USDT. waxaa soo copy garaynaysaa halkan cabaar haynaysaa ilaa paste ka soo baxay. kadibna waa soo copy garaynay wallet address-ka. kadib network-ka waxaa ka dooranaysaa TRC20. transaction fee-ga $1 kaaga baxayo. kadibna lacagta ugu yaroo la diri karo waa $10. haddaad rabtid inaad $100 dirtid, haddaad rabtid inaad $1000 dirtid, qaabkaas ayaa u gelinaysaa. kadibna withdraw ayaa leedahay. marka wuxuu kuu soo diraa code oo verification ah oo kugu soo diraayo email-kaaga aad isku diiwaangelisay iyo mid taleefanka aad isku diiwaangelisay ah. labadaas code kuu soo diraa. markuu kuu soo diro kadib labadaas code aad gelinaysaa. withdraw lacagtana sidaas ayay meesha ugu tala gashay ay ku gaaraysaa. maalmo ka hor waxaan soo gelinay video aan ku sharxeynay shirkadani Intelligence Prime Capital la leeyahay. dad badanaa markana soo weydiiyeen sida maaragtay qaabka ugu sahlan ee maaragtay lacag loo gashan karo shirkadani. shirkadani si aad u maalgashato oo lacag ugu shubato waxaa u baahan tahay in aad Binance account ka samaysato, inaad lacag ku shubato, kadibna in aad withdrawal-keeda soo doorato, kadibna aad lacagta halkan saas ugu shubmato. kadib inta halkan funding-ko kala imaanaysaa. waxaad dooranaysaa TRC20 Tether lacagta la leeyahay. kadibna waxaa copy garaynaysaa
wallet address-kana copy garaynaysaa kadibna waxaad tegaysaa long brace aad leedahay cabaar afarta ku haynaysaa ilaa paste soo baxayso kadibna saas ayaad lacagta rabtid ugu soo diraysaa kadibna withdraw ayaa leedahay marka shirkadaas marka waa shirkad Canada ku taalo oo broker ah oo bixiso adeega forex-ka sidoo kale waxay leedahay robot si automatic ah kugu shaqeynayo oo maaragtay wax shaqo adoon qabanin ku trade gareynayo kadibna maalin walba profit ka siinayo haddii aragtid faahfaahin dhammaystiran insha Allah fiidiyodeena kale oo aan uga hadlayno intelligence prime-ka daawo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wixii su'aalo aad qabtaan sidoo kale telephone numberkeena oo WhatsApp-ka ayaa idinku reebaynaa oo waqti walba aad nagala soo xiriiri kartaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa fiidiyoga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.